munaasabada dhaarinta madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ayaa ka duwaneed xafladihii hore iyadoo oo dad yar ay ka soo qayb galeen maadaama ay jirtay cabsida cudurka COVID-19 oo Mareykanka farabaan ku haya iyo waliba rabshadihii taageerayaasha madaxweynihii hore ee Trump ay ka sameeyeen caasimadda Mareykanka. xafladan oo si nabad ah ku bilaabatay kuna dhamaatay ayaa waxaa si weyn u daawanayay bulshada Mareykanka iyo caalamka waxayna ahayd caleemo saar taariikhi ah. Joe Biden ayaa si rasmi ah u noqday madaxweynaha 46aad ee Mareykanka iyada oo Kamala Harris ay noqotay haweeneydii ugu horeysay ee madaxweyne ku-xigeen ka noqota dalka Mareykanka. madaxweynayaashii hore ee Mareykanka inta nool ayaa ka qayb galay xafladda marka laga reebo madaxweynihii hore Jimmy Carter oo isaga ah nin 96 jir ah, waxaana xusid mudan in Donald Trump isaga guuray aqalka cad una dhoofay gobolka Florida isagoo diiday inuu ka qayb galo xafladda caleemo saarka Joe Biden, balse isaga bedelkiisa waxaa joogay madaxweyne ku-xigeenka xilka ka dhigay Mike Pence. Trump oo khudbad kooban u jeediyay tiro yar oo taageerayaashiisa oo ku sagootiyay garoonka diyaaradaha ayaa sheegay inuu guul u rajaynayo maamulka cusub isagoo aan soo hadal qaadin magaca madaxweynaha cusub. madaxweyne Joe Biden ayaa khudbadii uu soo jeediyay kadib markii xilka loo dhaariyay ayaa sheegay inuu doonayo inuu mideeyo shacabka Mareykanka oo si weyn ugu kala fogaaday siyaasadda. wuxuu madaxweynaha cusub sheegay inuu isagu u shaqeyn doono dhammaan shacabka Mareykanka, kuwii isaga u codeeyay iyo kuwii ka soo horjeeday intaba, wuxuuna ballan qaaday inuu si daacad ah ugu shaqeyn doono. Kamala Harris ayaa loo dhaariyay xilka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, waana haweeneydii ugu horeysay ee abid jagadaas ka qabata dalka Mareykanka. Kamala Harris oo 55 sano jir ah waxay ku dhalatay gobolka California waxaana iska dhalay muwaadiniin muhaajiriin ah oo aabaheed waxa uu ka soo jeedaa Jamaica halka hooyadeedna ay ku dhalatay dalka Hindiya. qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee Mareykanka ayaan mikrofoonka la dhex maray waxaana weydiiyay daroonkooda ku aadan xafladda caleemo saarka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan salaam bahda saxaafadda. magacaydu waa Cabdullaahi Aadan. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta caleemo saarka madaxweynaha cusub Joe Biden. waa aaminsannahay wax badan uu ka bedeli doono nolosha Mareykanka iyo amniga iyo wax walba. dad badan oo Soomaaliyeed oo laga yaabo dunida caladeeda inay ku xanibnaayeen oo aan maanta dareemayaan farxadda anaga aan dareemayno ayagana la dareemayaan. marka waxaan aaminsanahay maalin xorriyatul qowlkii uu dib u soo noqday inay tahay maanta maalin shacabka Mareykanka ay dareemayaan in de nolosha caadigeed iyo safety-gooda iyo wax walba macnaha okay noqday. marka waa aad baan u faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa. waxaa kaloo aan shacabka Mareykanka ama qaasada Soomaalida aan u sheegaynaa dad badan baa hadda cabsanaya oo ii sheegay waxay ka baqayeen waxaan maaragtay amniga iyo dadka inay isku travel gareeyaan laakiin wax walba okay inay noqonaysaan rajaynaynaa. aadna waan u faraxsanahay. madaxweynaha cusub waan soo dhaweynaynaa. waan ku faraxsanahay kulley waa farxad weyn weeyaan u soo hoyatay maaragtay bulshada North America khaasatan dadka immigrant-iga cunsuriyadda ku haya Trump inay ka leesan doonaan baan qiyaasaya. 4 sano waxay ahayd oo maaragtay waddanka khaasatan dadka waliba immigrant muslimiinta ah oo maaragtay dhibaato badan iyo maaragtay dadka inuu kala takooro u soo hoyatay, laakiin haddana alxamdulillah waa laga raysan doonaa insha Allah. Donald Trump waxa lagu xusuusan capitalka wixii ka dhacay state capitalka wixii ka dhacay ee lagu xusuusan doonaa oo waliba bug madow ayuu kaga qoran yahay sida taariikhda aniga aan qabo. oo waliba waxa kale oo lagu sii xusuusanayaa waa madaxweynihii ugu dambeeyay Biden ka horeeyay weeyaan oo diiday inuu xukunka wareejiyo oo u malaynaya inuu waddanku yahay bilaa dastuur. taas ayaa lagu xusuusan doonaa sida aan qabo. Biden waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu da'da weynaa abid fariista aqalka cad ee Mareykanka waana 78 jir, waxaana uu muddo dheer soo ahaa senator ka tirsan aqalka sanadka isagoo sidoo kale 8 sano soo ahaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka
ee xilligii madaxweyne Barack Obama. Asmar Cabdinuur, Asmar Degan, Nabad TV, Mareykanka.